Mwah. Assalaamu calaykum daawade. Waxaan ka hadlaynaa qisada guusha Jiang Zemin ama aasaasaha abka caanka ah ee TikTok. Wuxuu ku dhashay dalka China, magaalada Longyang ee gobolka Fujian, sanadku markii uu ahaa 1983. Markii uu dhameeyay dugsiga sare 2001, waxa uu ku biiray jaamacad ku taalay magaalada Tianjin, waxaana loo yaqaanay jaamacadda uu ku biiray Nankai University. Waxa uu jeclaystay inuu qaato kulliyadda microelectronics, laakiin waxa ay noqon weysay sidii uu ka rabay. Kadib waxa uu ku biiray kulliyadda software engineering. Xilligii uu ku guda jiray dhigashada jaamacadda, waxa uu ka shaqayn jiray samaynta website-yada iyo barnaamijyo kale si uu uga helo lacago yaryar uu ku kaafiyo nolol maalmeedkiisa. Kadib qalinjebintiisii, waxa uu guursaday gabar ay isku barteen jaamacadda. bishii labaad ee 2006, sanad kadib qalinjebintiisii, waxa uu ka mid noqday 5 shaqaale ee ugu fiican sanadkaasi. Kadib waxaa qaatay website lagu magacaabo Kaizen oo si online ah u iibin jiray tigidhada duulimaadka. sanad kadib waxaa laga dhigay agaasimaha dhanka farsamada ee website-ka Kaizen. 2008, Jiang waxa uu isaga tagay website-ka Kaizen wuxuuna shaqo ka helay shirkadda caanka ah ee Microsoft, balse waxaa caburiyay ama uu adkeysan kari waayay shuruucda u taalay shirkadda Microsoft awgood. In yar kadib waa uu isaga tagay, wuxuuna ka shaqo bilaabay shirkad lagu magacaabi jiray Fanfo, laakiin aakhirkii waa ay burburtay. 2009, waxa uu maamule ka noqday shirkad lagu magacaabo 99fang.com. 2011, Jiang waxaa ku soo dhacay fikrad aasaasidda shirkad tiknoolajiyadda la jaanqaada oo samaysa applicationada iyo wixii la midka ah isagoo isticmaalaya artificial intelligence. Kadib waxa uu isaga tegay shirkadda 99fang.com. wuxuu bilaabay dhisidda kombanigiisii ugu horeeyay isagoo magac uga dhigay ByteDance. wuxuu ka miro dhaliyay hadafkiisii, waxayna shirkadda ByteDance soo saartay abkii ugu horeeyay oo lagu magacaabay Taotiao oo laga daalacdo wararka. muddo 2 sano ah gudahood, waxaa si joogto ah u isticmaalayay 13 milyan oo qof. Kadib shirkadda waxa ay soo saartay applicationo kale. 2015, shirkadda ByteDance waxay soo saartay ab la isku dhaafsado muuqaalada. Kadib waxaa aad looga isticmaalay dhulweynaha China, waxaana dalka China looga yaqaanay Douyin. sanad kadib waxay iibsatay shirkadda ByteDance ab caan ka ahaa dunida oo lagu magacaabi jiray Musical.ly, oo dhalinta u isticmaali jireen inay muuqaaladooda dul saaraan heeso kadibna ka daba qaadaan. waxayna ku iibsatay miisaaniyaddan 800 oo milyan. kadib waxaa la isku daray ama la isku dhaafay barnaamijyada kala ah Douyin iyo Musical.ly, waxaana loo bixiyay TikTok. TikTok waxa ay caan ku noqotay muuqaalada qoobka ciyaarka ah, heesaha iyo mujaajilooyinka gaagaaban. 2008, waxaa sii baday wax soo saarka shirkadda ByteDance iyadoo soo saartay abisyo aad u tiro badan. abka TikTok waxaa degsatay in ka badan 1 bilyan oo qof. dadka degsaday abkani 29% waxay ka soo jeedaan dalka India, 9% waxa ay ka soo jeedaan dalkaasi Mareykanka ah. dadaal dheer kadib, hayaankii guusha iyo daalkii tirada badnaa, Jiang waxa uu noqday bilyaneer haysta lacag lagu qiyaaso haatan 22.6 bilyan, waana qofka 9aad ee ugu taajirsan dalka China. ugu dambeyn, waxaa Jiang soo wajahay caqabado aad u tiro badan oo kaga imaanayay dalalka uu isku dhaca xoogani dhex yaalo dalka China. ugu horeyn, waxaa laga xayray dalka India 59 barnaamij oo laga leeyahay dalka China oo lagu soo eedeeyay inay xogaha qarsoon ee dalka India la baxeen si fasax la'aan ah. nasiib darro waxaa ka mid ahaa abka TikTok. bishii 8aad ee sanadkan ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay inuu dalka Mareykanka ka mamnuucayo abka TikTok. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. waxa uu wariyaasha u sheegay inuu saxiixayo go'aan sare oo qadka looga saarayo abka TikTok ee dalkaasi Mareykanka. waxaa dacwado aad u tiro badan ka gudbiyay madax badan. maamulka shirkadda ByteDance, Vanessa Bebas, ayaa sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo kala dhexeeya dalka China. haddaba daawade, siday kula tahay xamaasadda ka taagan abka TikTok? fikirkiina quruxda badan waa noo muhiim. fadlan nagula wadaag qaybta hoose ama kommentiga. subscribe saar si ay dhiirigelin noogu noqoto.